يا بوس أنا وجيت هنا تونا فرحوا واقرتي قبل أن هاجم بفلوس ونور توبة واقرتي وضعوا دعوة حد بدل مشروع لكن ولا سرقة ولا سوريا ولا يلعب بمعنى يمكن هاجم وحاول كسر هاجم وحان وجوها واحد لكن وهاجم بغرفة بغرفة waayahay saacadihii ugu dambeeyay waxa soo baxaya warar sheegayay in israasaasay ay dhaxmadhay ciidanka Puntland iyo kuwa Somaliland ee ku sugan jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq arintaasi maxaa ka jira arinta ciidanka walaba oo saraftaa walaba oo saraftaa laakiin dagaal laba safar ma dhicin walaba oo saraftaa waxana waa anaga gaarin laakiin xaggooda waxyeelada yaa gaarsiiyay xaggooda gaartay xaggooda waxa gaarsiiyay guutada labaad oo ciidan meel jooga wax gaarsiisay iyaga wax ma soo gaarin miya waxa loo sheegay adigu fursad yahay ku dhaca waa jiraan laakiin wax ama dhaawac xabadooda kuma dhicin waayahay waxaad hadda sheegtay in wax dhaceen si kasta dhinac kasta ha ku buuraadeen waxan aad noo sheegtay inay dhaceen goorma ayay dhaceen waqti intee la eg ayuu socday waxan dhacay iska horimaadka haatan naftarkeeda wararkii ugu dambeeyay ee soo gaaraya waxa ay sheegayaan in rasaas laga maqlayo deegaanka Tukaraq waliba hubka culus hubkaas yaa ridaya xageesa ka dhacaya hubka anagu waxa weeye hub diraasho xabad diraasho marino waxa uu daalo ku rugnaa rasaasta marka xageeda anaga lagu rugnaa waa xageeda baa wax ka dhacayaan waxa barabsan iyo dagaalada dhexdooda marnaa laakiin wax dawaari kama jiro waqti badan ayay ciidanka Puntland meeshan fadhiyaa maalinba maalinta ka dambeysana siyaado ciidan ayaa sii kordhaysa meeshan maxaa laga fili karaa xilliyada soo socda xilliyada soo socda waxa weeye amarka Ilaahay waa iskale laakiin xilliyada soo socda isbedel baan rajaynayaa waayahay maalin kasta shacabka waxaad ka mid tahay ciidanka jiida hore jooga shacabkuna maalin walba waxa ay sugaan isbedelkan ma mid ay Puntland kaga dhabayn doonto ba mise waa mid maalin walba isbedel baan rajaynaynaa un taagana waxa weeye wax kala dhiman ma baro wax maalin kasta aan meeshooda dhaafina ma baro Puntland waxa weeye hadda diyaar tahay hadana waxa weeye arrinta ka buuxsatay si fiican ugu diyaar garoobay waxa weeye kii dharka maanta weeye